مريض هبارود والله ما لقيت شكل جريسي انه ضد نسود وسعودي. In this area safe as secure Barud. بارود ماشي لن سكور waxbaa ka welilan waa ka check gareen orada markii ugu dambeysay waad yiri xaaladdu way xuntahay waxaan u baahanahay ciidamo oo zaid ah ma garad marka ninkan waxa inoo keenay baldoos بارود ninkan manaxo magaciisna waa Faroos بلدوس ninkan maanta waxay ka bilowday waxaan u bixiyay فيروس kana waa qatar ma igu raacsan tahay waa kugu raacsanahay فيروس بلدوس ninkan mi wata waa ka hawaa anu iga socdaa thank you let's go guys waxaan kuu sheegaa in codkaada aan duubayno maqal iyo muuqaal waxaan ku weydiinaa goormaad waddanka UK soo gashay 2000 ka soo galay weliga dambi ma gashay mana lagu xiray hal mar la xiray maxaa lagu xiray dukaana ii furnaa cashuurta dhiiweeno been baad sheegaysaa warbixintaada waa haynaa walaalkaa baa sharci darro ah baasaboorkaada waddanka kusoo gelisay run waa dambigaas waa gal laakiin xabtada soo mari mahayno fiiri faad dowladdan ingiriiska jaanis bay ku siiyeen jaamacad baa lagu siiyey waxbarasho free ah baasaboor baa lagu siiyey guri baa lagu siiyey marka jaaniskaada waa ka faa'iidaysan weysay ha isku dayin inaad annaga been noo sheegto annaga waxaan diyaar u nahnay inaan ku caawino marka isku day inaad runta noo sheegtid oo jaaniska aad ka faa'iidaysatid runtaada waa mustaqbalkayga ana ku ciyaaray laakiin darun sheego amaankayga ka mas'uulka ah ha cabsanin ammaankaaga anaga gacanta ku hayno okay waxaan ku weydiinaa raggan ma taqaan si fiican oo ka saa kulligood xaggee isku barateen dadkaas London isku barana maxaa idinka dhaxeeyay shaqana ka dhaxaysanaya shaqada idinka dhaxaysay maxay ahayd shaqadan waa lagu khasbay inaa ka baxaray hadaa ka baxdo waxay dhan ka baxdid waa ku khaarijinina la dhaw ku dilina okay ilaa hadda nooma aadan sheegin waxaad qaban jirtay waxaa qaba jiray baaruud wixii ugu amro waa samay jiraan ilaa hadda nooma aadan sheegin waxaad qaban jirtay shaqada waxay ahayd baaruud qofkii ka soo horjeesto amina afduubno amina dilno ma ka war haysaa raggaas waxay dileen ama ay afduubeen ha baldoos iyo baaruud waxay dileen in la yiraahdo Joe ya ha maxay tahay sababta ay u dileen si dahabkiis loo dhaco ahaan aloo dili yay kaloo dileen waxay kaloo dileen in la yiraahdo Sahal baaruud gacantiisa ku dili maxay tahay sababta oo baaruud gacantiisa ugu dilay baaruud walaalkiisa zakari kala dhahayo Sahal u shaqeey jiray shaqada laga soo buriyay saas ahaana loo dilay Sahal boolisku waxay noo soo gudbiyeen kiiska Sahal inuu asaga iskugu dhuftay bistoolad madaxa sheekaas wax ma ka jiro baaruud soo gudaha u galay Sahal madaxa oo xabad ugu dhuftay asaa dilay baaruud dilay sidoo gurigiisa ugu galay baaruud Sahal xaaskiisa arintaas dhan u fududeysay ila albaabka furtay taliye yaa way saaradan ma la kulantay haa waa la kulmay markii ninkeeda la dilay ayaan interview ku qaaday Bonville Road number 7 baan deganaa qor fiican walaal sheegay haye walaal hadalkeedana wuxuu okaa hadal oo been say ku ogolaatay in ninkeeda la dilo kooba damac loo soo gashay lacag ahaan loo soo gashay iyada ma nin kala jecel ardinta ma noolaada lacagtaas leerti okay
kiiska kaltuun aan galna hadda Ay. adiga isbitaalka telefoon u diro u sheegay kaltuun in xabad lagu dhufto soo maa ha okay qofka xabadda ku dhuftay kaltuun ma aragtay ha waxaa ku dhuftay mariida ku dhuftay maxaad ugu celi weysay waxaa ugu celi waaye hadhuut anay dilaayaan sababta igu dilaayaanna waxaa waaye kaltuum anaa basoo badbaadiyba godkaas anaa kasoo bixiyey ayaga way ogaadeen ana godka kasoo bixiyey haddee waan iraadsanayeen ayagaab iraadsahaayeen waa sii dhuunti dhinaciygay usoo baxeen waa kasii dhuunti waxaa sugay ilaa ka baxaan markay baxeen aa umaaday ambulansa u wacay aa badbaadiyey aa isbitaalka saas ahaan ku geey inankii u aragtay meeshaasayt su-aasha ugu dambeeyaan ku weydiinayaa way weedi kartaa intay kaltuun xirneed adiga ma aadan caawini jirin maxaa hadda kugu dhaliyey inaad kaltuun caawiso waxaa waaye waxaa arkay si xune u cadaabaya ma fahamta si xune u garaayeen gabarta naxariisa ugu soo degatay subxaan allah min cind allahi ka soo degatay ma fahamta ma hubtaa inaad run sheegaysid runta daarti maalinta lasoo afduubayo anaa la socda ma fahamta se soo afduuben se u galeen aniga xataa caloosha jilka ugu dhuftay ma fahamta markii lasoo afduubi oo godka la geeyey kadib saas ahaan waxaa u sameynaya inay cafisa ahaan ma fahamta kasta jilka oo caloosha ugu dhuftay okay waa macquul way dhici kartaa wixii hadda ka dambeeyo adiga waa inaad nuga caawintid raggaas meesha laga helo iyo dadkaas iyo wixii information aana soo siisid haddaad ratid in aan dembigaaga qafiifino okay diyaara ahay bas yaa ka bilaawa okay at the moment waxaan u baahanahay baaruud mari iyo baldoos saddexdaas dad culus ay weydiisay kuwaasit male dhidhir ma lagu helaayo mar walba meelay seexdaan ma fahamta ana xataa marmarkoo waraadiya ma helo zahro iyo zakariya haddii la helo baaruudna waa helaynaa xaadir ma la heli karaa sahro iyo zakariya zahra iyo zakariya waa la heli karaa arrintaasaan rabaa inaa iga caawisid marka ugu horeyso marxaba waxaa akhaana jid mar walba oo soo marta zahra iyo zakariya soo maraan okay goormeedna gey kartaa meesha soo maraan horta aniga hadda shaqaa bilaabay weekendigiila la heli karaa sida ugu dhaqsaha badan waa inaad kusoo xirtiin xaadir waaya ana hadda waa baxi karaa mahna may farankan qaada hadda soo baaraa ana dambe ma gelin maxaa iga baariya taas adiga lena yiri afkaadaa ka tiri laakiin aniga farahaagaan la sheekaysanaan aaminaa marxaba yalla